السلام عليكم وإن سلام الدمانتين waxaan usoo galay kaliya inaan ulajeed yar uga hadlo oo ah war lagu kalsoonaan karo oo maxaa la dhahaa ii sheeg la dhihi karo nacam wuxuu ka soo yeeray arrintii maalmahan oo dhan la isku haystay ee muranka dheer iyo murugta dheer badhalisay walaalkay maxaa la ii sheeg xariga walaalkay qadarkeeyo marka anaga marka hore yacni mar walbaba kama hadli kartid oo yacni bulsho lama soo hor istaagi kartid wax aanan mar walbaba hubin oo aanan salkeed iyo baarkeed waxay ku socotay iyo meesha ka socotaba aanad ogeyn saa darteed marka hadda alxamdulilah waxaa idinkugu soo horfariista halkan inaad noo duceysaan isagana aad u duceysaan in ilaahay wiilkaas dhalinyarada ah ee caanka ah ee walaalkeena ee fanaankeena ah haddana especially kasoo jeedo magaaladeeni muqdisho ee walaalkeen ah inaad u duceysaan maadaama la yiri labadan maalin dhexdooda ayaa laga yaabaa inay arrimahaasi waxaasoo dhan ay hooshooda soo dhammaadaan oo insha Allah xurriyadiisa uu dib u helo marka ummadda Soomaaliyeed waxa uu sheeray maxaa la ii sheeg una duceeyaan maxaa la ii sheeg iskana maxaa la ii sheeg yareeyaan kurbada walaalkay Cabdidaanta soo galay waryaha aniga weligay kool qof kale ma hadlin isoo wacay talo bal aan wixii sugaadii la wixi karo Cabdidaanta hoosha wuxuu ka wadaa qayb runtii libaax leh oo waxa xusi doonto taariikhda waanan maxaa la ii sheeg u duceynaynaa isagana in ilaahay wax khayr qabo maxaa la ii sheeg yacni ka siiyo hawshan wanaagsan ee wax ka wado ee walaalkiisa oo maanta waajibkii saarnaa ahayd oo maanta hadduu isaga meeshu maanta qadar jooga hadduu cabdi joogi lahaa wadadii aan mari lahayn unbuu isaguna maray marka isagana waxaan leenahay waa mahadsan tahay hawsha wanaagsan ee walaalkii aad geeska ka wado marka maxaa la lahaa ii sheeg waxaan idin leenahay bal soo duceeyo ducadiina intii ugu dambeysay baa dhiman insha Allah in wiilkeena ilaahay xurriyadiisa dib noogu soo celiyo iskada ha xirnaade guuleed wardheere dibka ugu weyn ee jiro ee ilaahay masiibada maanta na dul taagan waxaan ileen waa masiibe ilaahay noogu dulqaadi waayay waxaan u baahanahay inaan maxaa la ii sheeg yacni bulshadeena wuxuu ku badan yahay xasadka quurweeta ma laha dadka aanan dadka kale wax u quurin dadka aanan dadka kale u doonin in noolaadaan walaalkooda xasadka ee baa ku badan magaaladeeni maxaa la ii sheeg muqdisho saa darteed ilaahay xasadka naga dulqaado hadda qof baa meeshan wuxuu ku leeyahay iskaga jiro bal xarigiisa iyo ku jirista xurriyad la'aanta qofeed ee qofkaasi oo xurriyad la'aanta ahaanay bal maxaa qofkan ka soo galay biyaha qabowga badan ee ku marayso laabtiisa qofkaas inuu xirnaado xurriyadiisa waayo iyo qof walaalkiisa inuu dhibanaado maxay tahay a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim war subhanallah dhaha dukada ilaahayna barya ilaahay nabad hana siiya la wada dhaho dhamaanteen aan wada dhahno marka Cabdidaanta waa mahadsantaa walaalkay adiga Allah ku sharfo qadarna ilaahay ka soo bixiyo dibkaas iyo maxaa la ii sheeg xarig waxa waay xarig hadii lagu yiraahdo qolkan aniga hadda qolkayga ah ee aan dhex fadhiyo aan ka soo hadlay hadii lagu yiraahdo laba maalin qolkan ku dhex jiraysa uma soo bixayso banaanka waa xabsi marka nolosha xabsi kuma fiicno ma fahanteen marka aan wada duceysano walaalkeen maxaa la in aan u duceyno ilaahayna ha nooga maxaa la ii sheeg ha noo yeelo riideena aan jecelnahay inuu ilaahay banaanka u soo bixiyo waana kaasa insha Allah waxa laga yaabaa in mar dhow hadduu ilaahay yiraahdo xurriyadiisa dib u helay ilaahay ha ugu sahlee waa mahadsantihiin dhamaantiin idinkana Soomaalida waa dad xun baa ka buuxo waa sax Cabdidaanta Soomaalida dad xun ka buuxo dad xun baa ka buuxo dad aan laga noolaan karin oo nafta qof uga jiri karin yaa ka buuxo marka ilaahay baa maxaa la waxa soo dhan maanta ka shuqul leh haday waxyaabaha qaar haday awooda waabay sameeyaan teedka waxaan ka yaabanahay halkan baad ii soo kortay Cabdidaanto seen kaaga soo qabtaa baa see haday kalam ku soo wici karaa see ku soo wici karaa war leefkan galowgiisa moogtaa kuma badni ma amana garanayo balaayad
walaalo kaama soo dhex qaban karo kow dheh bay waa ka baxaa insha allah hadduu ilaa yidhahdo lifekan kheyr badan iyo farxad badan iyo nolol badan oo raaxa leh baan maxaa la ii sheeg idinku ogahay dhammaantiin lifekan waxaad daawanaysaa yaa wow 1,100 qof baad daawanaysa maasha allah dhammaantiin waa mahadsantiin bye 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 bye